sida xaqiijinaya ilo wargal oo laga helay dhinaca Puntland ayaa waxa ay sheegayaan markabka hubka lagu soo qabtay xeebaha Puntland laguna soo xiray dekedda magaalada Boosaaso in qaybaha baabuurta ee calaamadaha dalka Turkiga in la xaqiijiyay in ay leedahay dowladda Turkiga lagana leeyahay dalkaasi Turkiga oo loo waday magaalada Muqdisho gaar ahaan ciidan dhawaan laga keenay dalka Turkiga oo Muqdisho soo gaaray sida ku cad warqad qoraal oo maanta dib u qorid lagu sameeyay wasaaradda gaashaandhigga ay dib u qortay oo ay aragtay warbaahinta eber 234 xariijin 25 kuna taariikhaysnayd bisha labaad 5teeda 2025 ayaa lagu qeexay noocyada hubka iyadoo lagu lifaaqay warqado kale hubka boobayaasha fudud kuwa culus iyo gaadiidka kale oo isugu jira 3 qaybood oo kala duwan waxa la xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu talagalay ciidamo lagu xareeyay xirada Hiilweyne oo ah ciidan gaar ah oo si gaar ah u hoostaga madaxweynaha laguna qalabeynayo qalabkaasi kuwaasi oo mucaaradku horay ay uga digeen sidoo kale ganacsato xiriir dowladda dalka Turkiga oo wakiil uu ka yahay mid kamid ah wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markabkan waxa uu saarnaa baastoolada tiradooda lagu sheegay in ka badan 2500 kuwaasi oo suuqyada Muqdisho la rabay in dib loogu iibiyo ama laga iibiyo oo laga baayac mushtaro xogahaasi waa xogihii ugu dambeeyay ee hadda soo baxaya Puntlandna waxaa la sheegay in xabsiga la dhigay taliyihii ciidanka BNPF ee degmada Calula Jaamac Kambala iyadoo sidoo kale la geeyay taliska guud ee ciidamada badda Boosaaso Duqi Bareeda iyo taliyihii booliiska gobolka Ras Casayr ayaa iyagana wax laga weydiinayaa hubka fudud ee lagala degay markabka Sea Wall oo shalay lagu qabtay xeebaha Bareeda ee gobolka Bari mas'uuliyiintan ayaa ah raggii soo qabtay markabka isla markaasina keenay galabta magaalada Boosaaso weli ma jiro cid si rasmi ah u sheegatay lahaanshaha hubka saaran markabkan oo ku sii jeeday caasimadda Muqdisho warar iskhilaafsan ayaa ku gadaaman weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay lahaanshaha hubkan saaran markabka oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya lahaanshaha hubkan iyadoo dowladda federaalka dowladda Turkiga iyo ganacsato madax bannaan la sheegay in si wadajir ah ay u leeyihiin hubkan Puntland kaliya waxay xaqiijisay inay hayso markabka Sea Wall oo hub uu ku raran yahay mana bixin wax faahfaahin ah oo kale afhayeenka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Jaamac Dabraani ayaa waxa uu sheegay in markabka Sea Wall oo ay galbinayaan ciidamada badda ee Puntland ee BNPF uu galabta uu ku soo xirtay dekedda magaalada Boosaaso waxa uu sheegay inuu socdo baaritaan iyo waliba hubka uu sida markabkani waxa uu yahay in la hubinayo wixii faahfaahinana ay gadaal ay ka soo sheegi doonaan oo ay baahin doonaan waqtigeeda dowladda federaalka Soomaaliya waxay maanta si rasmi ah u sheegtay in ay diiday in ay dhoolatus dhinaca badda ah la sameynayso dalal aan bad lahayn kadib kulan dalalka bariga Afrika ay ku yeesheen magaalada Muqdisho dowladda Itoobiya ayaa la tibaaxaya inay doonaysay in ay soo bandhigto awoodeeda dhinaca badda balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaashaanka u darurtay in dowladda Itoobiya ay biyaha Soomaaliya ku samayso dhoolatus dhinaca badda ah oo ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya ay soo galaan badda Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa warbaahinta u sheegay in arintaasi dowladda Soomaaliya iska diiday wixii ka dambeeyayna go'aan lagu qaatay in biyaha Soomaaliya aan lagu samaynin wax dhoolatus ah dhoolatuskana loo wareejiyo meel kale halka aad warkaasi kala socotaan waa Rasmi Radio fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar barnaamijka like garee oo noo share garee si uu dad badan u gaaro mahadsanidin